magacaygu waa Axmed, waxaan ahay arday dhigta dugsiga hoose dhexe. Markaan soo gaaray galaaska 7 gelinka dambe iyo waqtiga fasaxa, waxaan wax ka baran jiray garaash uu abtigay leeyahay, halkaas oo aan ka helay shaqadaydii ugu horreysay. Markaan gaaray dugsiga sare, sidaas oo kale ayaan u sii watay hawshaydii makaaniga anigoo aan marna dayicin waxbarashadaydii. Markii aan dhammeeyey waxbarashadii dugsiga sare, nasiibkaygu ma noqon in aan ku biiro ardaydii jaamacadda, laakiin waxaan watay farsamadaydii cilad ka saaridda baabuurta, hawshaas oo noqotay mid la igu ixtiraamo. Intaas waxaa ii dheeraa hiwaayadaydii garaacidda gitaarka iyo ku luuqaynta heesihii Soomaaliga oo ay qaadeen fanaaniintii waaweyneed ee waddanka. taasi waxay iga dhigtay fanaanka magaalada, waxaana la iiga yeeran jiray aroosyada iyo xafladaha kale ee lagu qabanayo magaaladeenna. Waxaan kaloo caawin jiray ardayda wax ka barata degmadeenna, gaar ahaan dugsiga sare, anigoo ka taakulayn jiray maadooyinka xisaabta, kimistariga iyo fisikiska habeenkii, ayagoo iigu iman jiray aqalkayga, taasoo faa'iido weyn ii ahayd oo aniga laftayda aqoontayda sare u qaaday. Waxaan lahaa saaxiib aan aad isugu wanaagsannahay, magaciisuna wuxuu ahaa Faarax. Inankaas waxaan ahayn 2 qofood oo ay naftu ka dhaxayso, isla markaana waxaan wadaagi jirnay siraha. Amar walba oo ku qabanayo 1,000 sano ayuu kaa weyn yahay. Waxaan dareemay mar keliya xaaladayda oo isbeddeshay kadib markuu i asiibay jacayl daran, kaasoo noloshayda wax weyn ka beddelay. Raxma oo ka mid ahayd hablaha ugu quruxda, qiimaha, ixtiraamka, edebta, dadnimada wanaagsan magaalada, kuna jirtay ardaydii aan waxbarashada ka caawin jiray, ayuu dooqu i tusay. U fiirsasho badan bacdigeed, waxaan arkay anigoo dhex dabaalanaya badweyn caashaq. alla maxaa i baray, alla maxaa i baday, xanuun iyo damqasho badana. Ma awoodin in aan Raxmo u sheegto jacaylkaygan doqonka ah, waayo inanta xaggayga waxay u iman jirtay faa'iido aqooneed oo ay ayada, waalidkeed, walaaladeed ay abaal badan iigu hayeen, isla markaana aan ixtiraam badan kaga kasbaday inta aanu wadnahayga degin. Hadduu i weydiisan lahaa in uu igu soo biiro caashaqa, albaabada ayaan ka xiran lahaa oo marna uma oggolaadeen in uu dunta iigu xiro Raxmo qaali. Waayo sirgaxan iyo sabanno kulul ayaan dhex galay. Mar walba waxaan jeclaa in aan keligay ahaado, anigoo ka sheekaysanaya jacaylkaygan curdanka ah, anigoo xishood dartii ka qarsanayo asxaabtayda. Maalin maalmaha ka mid ah oo aan shaqada fasax ka ahaa, anigoo qolkayga ku dhex jira, isla markaana garaacaya kabankaygii, qaadayana hees uu ku luuqayn jiray fanaanka weyn Axmed Cali Cigaal, ayaa waxaa ii soo galay saaxiibkay Faarax. Heestu waxay u dhacaysay sida tan: ilkaheedan dhuuxa, indhaheeda dhayda, dhabankeeda curubka, sunniyaha bildhalatiyo sida qaansa lagu dhigay, timaheeda dhuxusha barkood dhaafay dhabarka, badhna soo dhaceeno laydhu ay ku dheeshiyo, midabkeeda dhiinka. Ma waagoo dhalaalaybaa, ma dhibic seerma weydaa, ma dhallaan la jecelyaa, ma xalay ubax dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo la dhacaaya qosolba, sida dhoolka guga'o dhudhumihiiyo kaymaha, dhowr beri ku hooroo dhirtii wada magoosho, saacii wada dhalaalay, rahu fii dawaaqo, roob la dhaco dhex maro, baalalaydu hadba dhinac isku kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante. Ma waagoo dhalaalaybaa, ma dhibic seerma weydaa, ma dhallaan la jecelyaa, ma xalay ubax dhasho
dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo la dhacaaya qosolba waa dhammays haweeno dhaxyarideeda madagta luqunteeda dhebiga dhaayihii jalleeca dhibaatada hilmaamee may dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe midda dhaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaye hannaan loo dhammeeye ma waagoo dhalaalayba ma dhibic seerma weyda ma dhallaan la jecelya ma xalay ubax dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo la dhacaaya qosolba inta aan heesta qaadaye qiiradaydu way sarraysay waxaana iga qubanaysay ilmada waxayna ila ahayd heestan in ay ku socotay jacaylka aan u qabo raxma isla markaasna abwaanka sameeyey allaha sharfee in uu sheekadaydan ka sameeyey waxaa aad u yaabay saaxiibkay faarax oo ay meesha uga muuqatay in aanan caadi ahayn oo ay wax weyn si iga yihiin waan ku celceliyey heesta anigoo si weyn wadnuhu ii walhanayo walaacay wadnahoo dhammaa i walhaday walbahaar caanshaq waaye wadkii cilmi ka waday wareerley adduunyo waa kan anigoo warmooga ah ayuu i wareemay wadkii cilmi ka waday wareerley adduunyo waa kan gabadhii laygu waalay war iima hayso waddadeydee iska wadataa anna wejigeeda la igama waayo markaan kabankii si iskay ah aan iskaga dhigay anigoo sidii u oynayo kontaroolkana iga lumay ayaa waxaa ila hadlay saaxiibkay faarax oo aad u naxsan wuxuuna igu yidhi walaal axmed maxaa ku helay waxaan ugu jawaabay waxba way ku adkaatay in uu ku qanco jawaabtaydan faarax ayaa u adkaysan waayey xanuunka aan xambaarsanahay ee uu iga dareemayo si dhibka uu ila wadaagana wuxuu iigu caqli celiyey in uu yahay saaxiibkayga koowaad isla markaana uu aad iigu damqanayo uuna yahay qofkii dhibka ila qaybsan lahaa wuxuu iga dalbaday in aan xaaladayda uga dhab warramo ku celcelin badan kadib waxaan ku qancay in aan la wadaago waxa uu igu soo kordhiyana aan arko waxaan u caddeeyey in fallaaraha jacaylka ay weydnahaygu degeen ruuxa jacayl wareemay iyo nin waabay dhammay waano yeeli maaye wuxuu i weydiiyey qofka aan u waashee waayahayga shideeyey markaasaan ku idhi raxma saaxiibkay wuu aamusay fakar ayuuna la jeestay anigana waxaan dareemay in faarax yahay dhakhtarkii boogtayda dhayi lahaa wax yar kadib ayuu igu yidhi saaxiib jaanis fiican ayaad haysataa mar walbana waad kulantaan ee maadantaada u sheegatid iyo xaaladda ku haysata waxaanan markaa u sheegay in aanan awoodin 3 arrimood daraaddooda 1 inantu aad bay iiga bulji sarraysaa oo markaan la hadal is-iraahdaba waa naxaya oo xataa indhahayga ma siin karo 2 waad og tahay waxaa dhalay hooyo iyo aabbo hantiilayaal ah hankooduna aad buu u sarreeya 3 inta hadalku afkayga ku jiro ayuu ammaano ii yahay mar haddaan ooda ka rogo waxaan la kulmi karaa diidmo iyo in markaa kadib araggeeda igu yaraado hadday sidaa dhacdana waxaan hubaa in xaaladaydu bariga dhexe noqon doonto waayo culusna aan wajihi doono faarax ayaa isku dayey in uu igeesinimo geliyo si aan ula hadlo xaaladaydana ugu sheegto raxma laakiin arrinkaas waa uu imarsiin waaye waxaana timid in aan tashanno habeenno badan ayaan arrinkan ka kulannay oo aannu ka wada hadlaynay aniga iyo saaxiibkay qaaliga ah waxaana noo soo baxay arrinka ugu wanaagsan in ay tahay in aan la hadlo adeerkay
oo degganaa Qatar, shirkad weynna madax u ahaa, si aan ugu dhammaysto shaqo iyo ciqaamad aan waddankaas ku dego, isla markaana aan muddo soo jeeb samaysto, anigoo soo degayna aan imaado waddanka, kadibna aan u gogol fariisto reerkana, sida ay ila tahay waddada keliya ee aan raxmo ku heli karo. Su'aal ayaase timi oo odhanaysa, inantu geed nooguma xirnee, haddii intaas rag kale soo doontaan oo la guursado maxaan samaynaa? Saaxiibkay ayaa shafka ii garaacday, wuxuuna igu yidhi, waxaan ku xirayaa baaswaar aan ruux kale furi karin. Anigaa mar walba u sheekaynayo, waxaana noqonaya la taliyaheeda gaarka ah. Faarax wuxuu ahaa nin maskax furan oo khabiir ah, hawshuu galana wuxuu ka keeni jiray natiijo wanaagsan, wuxuuna ahaa daacad aan marna khiyaanada aqoon. Shakhsiyaddayda ayuu igu waanin jiray in aan marna wax khiyaamin oo aan daacadnimo naftayda u huro. Si weyn ayaana ugu kalsoonaa dhanku iga xigana in aanay dhaxan marna iga soo gelin.